kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan halkan waa Bulsho Sports TV markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha qodobada idin hayana waxaa kamid ah Jose Mourinho ayaa 8 ciyaartoy ka ceeriyay tababarka Paulo Merson ayaa magacaabay xidig dhibaato u geysan kara England xog ku saabsan finalka Copa America ee Brazil iyo Argentina Luis van Gaal ayaa daboolka ka qaaday sababta uu fashilmay Mbappe Euro 2020 intaasi waxaan qodobadii warka haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan Jose Mourinho ayaa 8 ciyaartoy ka ceeriyay tababarka qodobkaasi waxaa eegaya Xasan Cumar Xuseen Jose Mourinho ayaa wax waqti iskaga lun wuxuu durba bilaabay shaqo degdeg ah isla maalintiisii ugu horeysay ee uu tababarka u bilaabay Mourinho ayaa usbuucii hore gaadhay magaalada Roma isagoo si diiran loogu soo dhaweeyay wuxuu tababarkiisii ugu horeeyay ee shalay u sheegay 8 ciyaartoy oo kooxda ah in ayna ku jirin qorshihiisa isagoo xitaanan ogolaan tababarka ay la qaataan kooxda koowaad waxaana ku jira liiska Justin Kluivert, Pedro, Steven Inzonzi iyo kuwa kale Paulo Merson ayaa magacaabay xidig dhibaato u geysan kara England qabiirka ciyaaraha Paulo Merson ayaa magacaabay xidig ka tirsan xulka qaranka Talyaaniga oo ay tahay inay ciyaartoyda Ingiriiska ay taxaddar ka sameeyaan isla markaana ay joojiyaan haddii ay doonayaan inay ku guuleystaan tartanka Euro 2020 oo ay finalka xadooda ciyaari doonaan Talyaaniga Roberto Mancini ayaa xulkiisii soo garaacay Belgium iyo Spain oo wareegidii 8 haddana waxay wajahayaan England Talyaaniga ayaa haysatay ciyaartoyda heerkooda sareeya waxaana kamid ah xidiga qadka dhexe ugu ciyaaray Chelsea ee Jorginho waxaana kabtankii hore Arsenal ee Paulo Merson waaminsaya inuu loo baahan yahay in 29 jirkan si gaar ah loo xidho Paulo Merson oo warbaahinta Ingiriiska la hadlay ayaa yidhi England waa inay joojiso Jorginho haddii ay doonayaan inay garaacaan Talyaaniga ma maleynayo inay noqon doonto ciyaar gool dhalinteeda hooseynayso labada kooxoodba waa adkeeyeen difaac ahaan tartanka Paulo Merson oo hadalkiisa sii wata wuxuu intaa raaciyay waa inaad joojisaan qadka dhexe ee Talyaaniga haddii aad doonaysaan inaad guuleysataan ciyaarta sababtoo ah isaga ayaa ka dhigay Talyaaniga mid adag xog ku saabsan finalka Copa America ee Brazil iyo Argentina warbixintaasi waxaa eegaysaa Qamar Maxamed Cumar Brazil iyo Argentina ayaa isugu soo baxay finalka Copa America oo ay saqda dhexe ee habeenka Axad soo galayso kuwada ciyaari doonaan garoonka markaana ee magaalada Rio de Janeiro wadanka Brazil Lionel Messi ayaa u halgamaya inuu koobkiisii ugu horeeyay u qaado wadankiisa isla markaana uu soo afjar 16 sanadood oo niyad ku dhameysanayay tartamada isaga xidhan shaadka qarankiisa kulankan ayaa markii afraad ay labada wadan isugu yimaadaan ciyaarta ugu dambaysa tartanka Copa America ee finalka ah waxaana hal mar uu Lionel Messi ku jiray uu ku baxay oohin saddexda jeerba waxa badisay oo koobka qaaday Brazil waxaana kala ahaayeen 1937 2004 2007 koobkii ugu dambeeyay 2007 ayuu Lionel Messi ku jiray Argentina waxaana lagu garaacay 3-0 isku darka 107 kulan ayay wada ciyaareen Brazil iyo Argentina Brazil ayaa guuleysatay 42 jeer halka Argentina ay 40 mar guushu raacday iyadoo 25 ciyaarood ee kalena ay barbaro ku dhameysteen xaqiiqda dhibaysa Lionel Messi ayaa waxay tahay in Argentina aanay xataa kaliya ka badin Brazil kulan tartan caadi ah tan iyo June 2005 markaas oo kulanka ka tirsanaa isreebreebka koobka adduunka ka dhacay Buenos Aires ee Argentina ku adkaatay 3-1 waxaana guushaas ka caawiyay Juan Roman Wilmi Argentina ayaa ugu dambeysay Copa America oo ay ku guuleysato sanadkii 1993 Lionel Messi ayaa caawa laga sugayaa inuu soo afjarin kaarta 28 sano jirsatay ee xulkiisa haysata Luis van Gaal ayaa daboolka ka qaaday sababta ugu fashilmay Mbappe Euro 2020 qodobkaasi waxaa eegaya Xuseen Cumar Xuseen tababarihii hore ee kooxaha Manchester United iyo Barcelona ee Luis van Gaal waxa uu sheegay isagoo gorfeeyay xidiga Faransiiska ee Kylian Mbappe Luis van Gaal waxa uu sheegay inuu da'yarkani aanu xeelad ahaan wali heer sare ahayn sidoo kalena xulka dalka Faransiiska ayaa haysatay tababaro xumo tartankii Euro 2020 ee wareega 16 kaga hadheen Antonio Conte ayaa ka hadlay ciyaarta u dhaxeysay Italia iyo England tababarihii hore ee xulka Talyaaniga Antonio Conte ayaa cadeeyay inuu Boslita ka heli karo xulka England ka hor finalka Euro 2020 England ayaa Zurich kula kulmi doonta Wembley Axada iyagoo finalka dhigtay tartanka weyn ee ugu horeeyay tan iyo 1966 labada dhinac waxay u muuqdaan kuwo isla siman inkastoo ay Italy u badan tahay inay soo martay tartan adag wareegga 16
halka kooxda Roberto Mancini ay ka adkaatay Austria, Belgium iyo Spain. England ayaa garaacday Jarmalka, Ukraine iyo Denmark wareegga 16. Conte ayaa soo maamulay Italy intii u dhaxeysay 2014 iyo 2016 isagoo ku tababaray koobkii ugu dambeeyay ee Yurub markii uu baxeen wareegga 8 dhamaadka kadib markii rigooreyaal kaga badiyeen Jarmalka. Wixii intaa ka dambeeyay wuxuu soo qaatay kooxaha Chelsea iyo Inter Milan isagoo ku guuleystay Premier League iyo FA Cup iyo Serie A. Wixii intaa ka dambeeyay wuxuu ku soo qaatay kooxaha Chelsea iyo Inter Milan isagoo kula guuleystay Premier League iyo FA Cup. Wixii intaa ka dambeeyay wuxuu ku soo qaatay kooxaha Chelsea iyo Inter Milan isagoo ku guuleystay Premier League iyo FA Cup iyo Serie A dambe. Cesc Fabregas ayaa magacaabay xidiga shidan doona finalka Euro 2020. Warbixintaasi waxaa eegaysaa Qamar Maxamed Cumar. halyeygii xulka Spain ee Cesc Fabregas ayaa magacaabay xidiga uu rumaysan yahay inuu shidan doono kulanka finaalka Euro 2020 kaas oo uu tilmaamay inuu noqon weeraryahan dhibaateeya difaacyada Talyaaniga. xulka qaranka England oo yimid finaalka markii uu horeysay muddo 55 sanadood ah ayaa wajahaya Talyaaniga oo ay ku wada ciyaarayaan garoonka Wembley ee magaalada London. labadan wadan ayaa kulamadii semifinaalka soo garaacay Denmark iyo Spain. Cesc Fabregas oo ka hadlay ciyaartan ayaa waxa uu sheegay in Raheem Sterling uu noqon doono xidiga garoonka u shidnaanayo, waxaana xusay in uu dhibaato badan u geysan doono Leonardo Bonucci iyo Giorgio Chiellini. Fabregas waxa kale uu ku andacoonaya in wadanka Ingiriiska garaaci doono Talyaaniga oo ku guuleysan doono koobka Euro 2020 taas oo haddii ay dhacdo u noqon doonto markii u horeysay ay koob qaadaan tan iyo 1966. Sterling ayuu Fabregas tibaaxay inuu xataa ku guuleysan doono abaalmarinta kabta dahabka ah iyadoo goolal ka soo dhaliyay Croatia, Czech Republic iyo Germany. laakiin doodan ayaa adkaan doonta maadaama ay goolal dhalinta hogaaminayaan Ronaldo iyo Sergio oo leh min 5 gool. Leonardo Bonucci iyo Giorgio Chiellini ayaa waxay jecel yihiin kubadaha hortooda ah waxayna neceb yihiin kubadaha la daba dhigo. sidaas darteed ayay ila tahay Raheem Sterling uu muhiim u noqon doono isaga oo eeganaya orodkooda. wuxuu shidan karaa ciyaarta ayuu yidhi Fabregas oo u waramay Telegraph. Juan Mata ayaa qandaraas cusub u saxiixay Man United. ciyaaryahanka qadka dhexe ee Isbaanishka ah ee ku guuleystay koobka adduunka ayaa ogolaaday inuu xilli ciyaareedka lala qaato kooxda Manchester United iyo garoonka Old Trafford. Juan Mata ayaa qirtay inuu iska diiday dalabyo kale si uu qandaraas cusub ugu saxiixo Manchester United isla markaana uu kordhiyo xiriirka uu la leeyahay Reed Vallis. ciyaaryahanka reer Spain ee ku guuleystay koobka adduunka ayaa 12 bilood oo kale ku qaatay Old Trafford iyadoo heshiisyo cusub la isku raacay. iyadoo 33 jirkan qadka dhexe oo wali haysta wax badan oo soo bandhigay iyo xulashooyinka mustaqbalka ayaa si taxadar leh oo loo miisaamay ka hor intaan la gaarin go'aanka uu kaga tagay Old Trafford. inta aan kusoo gabagabeynayna wararkii ciyaaraha Bulsha Sports TV anigoo Municima waxaa idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.